waxaan idinka sheekeynayaa sheeko gabadh baa ila soo hadashay Maraykanka waxay tiri sheekhow ii soo ducee marka dhibaata ay haysata maxaa weeye waxay tiri baryahan nabiga maana ru'ya ku arkay oo waxaan ka horna waxay tiri habeen kasta nabiga waan arki jiray habeen kasta nabiga waan ku riyoodaa aan ku riyo jiray laakiin maalmahan uga yar joogsaday markaas ay ducada anaa ku duca ka rabay labadeena adiga noo duceynayeen bal waxaad ku heshay ii sheeg waxay tiri wallahi wax kale ma ilaahay wuxuu ii furay tiri salliga nabiga aad u badin jiray kuma maalintii 10 kun goor baan nabiga ku sallinayay marka xoogay hadda aan yareeyayna oo xoogay ru'yadii waa iga go'day Allah waxaan leeyahay kullayba yani qof khayr la ilaah ba ogay annaga ku soo ducana dab la soo ducay kadib way soo wacday aytan alxamdulillah salliga ilaahay dib uu igu furayo arintii waa ii sahlanaatay ru'yadiina waa ii soo noqotay Allahu akbar ru'yadiina waa ii soo noqotay waru'ya hadda habeen kasta tara rasuulullah sallallahu alayhi wasallam markaasaan waxaa haddaad ii fasaxdo magacaaga sheegi maayo laakiin muxaadaraadkan ku darsanay bal waayay laakiin maalin dambe igu soo celisay telefoon waxay tahay mar haddaad ku darayso muxaadaraadka meesha ilaahay iiga furayna waa inaad ku dartaa waa maxay ilaahay wuxuu salliga nabiga iigu furay agoon yaa ii sheegay bay tiri oo waddanka Soomaaliya ah oo aanan dee qaraabana ahayn waxbana isu ahayn baan kafaalo qaaday marka agoontaan kafaalo qaaday baa ilaahay salligiisiina ii furay salliga nabiga markii ilaahay furayna ru'yadiisii baa ilaahay siiyay عليه الصلاة والسلام ومشوا النبي يقول أنا وكافل اليتيم كهاتين صحبة النبي على كاس الكهش وكسل النبي أنا إلى تكون هشام عليه الصلاة والسلام خير بدن إلى يكون جرا شكك ومجراه